السلام عليكم. dekadihii waa la kala calaamadeystay khayraadkii badda waxaa guranaya maraakiib shisheeye. Kenya waxay goosanaysaa bilad xaawo. Dalkii waxaa usoo shaqo tegay maafidii dunida oo dhan. Siyaasiyiintii Soomaalidana waxay barteen sida looga macaasho ama sida loogu noolaado dal dumay iyo dad burburay. Halkaa marka xaaladdu ay marayso, dadku inta badan waxay ku fac yihiin cabasho iyo dhaleecayn oo ah hubka ay ku dagaalamaan dadka aan waxba qabsan karin ama ducafada ah. Su-aashu waxay tahay maxaa keenay inay xaaladda Soomaaliya gaarto heerkaas aadka u liita? Waxaa keenay tafaraaruqa, khilaafka, kala qaybsanaanta Soomaalida iyo is-eryashada aan dhamaadka lahayn oo annagu aan isku hayn. Dabcan dalalka deriska ayaguna way ka faa'iideysanayaan arrinkaas. Waxay isku dayaan inay soo huriyaan colaadaha, inay Soomaalida isku diraan, inay hubka isugu dhiibaan, dalkana inay kala gooyaan haddiiba ay awoodaan. Arrinkaas ceebna kuma aha, wayna ku saxan yihiin. Annaga ay ahayd ceebtayna welina tahay inaana fahmin. Annaga ayaa nagala rabay inaan arrinkaa ka hortagno oo aan waa hore fahmin. tusaale haddii aad aragto nin adiga ku dili rabay oo aad ka dhuumaaleysanaysay oo inta soo gato sun raadinaya koob iyo biyo oo iskula qaso si uu u cabo, maxaad samayn lahayd? waa siilaysa uga raaxaysa dhibkiisa. xilliyada ka mid a Kenya iyo Ethiopia waxaa rucbi iyo argagax uga filnaa jiray maqalka magaca Soomaaliya. maanta markay arkaan xaaladda Soomaalida ay gaartay, sida ay u kala cugdado u kala dhex galeen, sida ay u kala guureen iyo sida xaaladooda ay u qallafsan tahay, waa dabiici inay ka faa'iideystaan. waa dabiici inay sii kala dilaan. waa dabiici inay dhibaatada sii kordhiyaan. manaha in lagula yaabo. annaga ayay tahay inaan arkaas fahamno kana gaashaamano. sidee looga bixi karaa marka? waxaa looga bixi karaa inaan dib u eegno wixii naga khaldamay. waa inaan dib u akhrino waxaana soo gaarsiiyey inay xaaladdeena sidan ku dhammaato. waxaan u baahannahay qof kastoo Soomaaliya oo wax garta inuu ka soo baxo qolka mugdiga oo ku dhex jiro, inuu mikrofoonkiisa qaato, dadka inuu uga digo khatarta ku hareeraysan, in Soomaalida loo sheego inay qabyaaladu tahay sun, qabiilku inuu yahay kala guur, is-eryashada iyo cuqdadaha mala awaalka ah oo annagu aan isku haynana inay ka dhigan tahay ismiidaamin wadareed oo aanay jirin qof badbaadaysa haddii aanan dhaqso ku midoobin khatartan aanan u arkin. anigu runtii waxaan aaminsanahay duqeyska iyo dhibaatooyinka ay wadaan dalalka deriska ah iyo weliba kuwa carabta ah inay daran noogu jirto. maxaa yeele waxaa jira dad Soomaalihu aan weli fahmin khatarta. dad u badan ayaa u baahan in karbaash ku dhaco ama indhahooda wax ku arkaan, oo weli ku mashquulsan xifaaltankii Soomaalida ka dhexeeyey, qabyaaladii iyo loolankii Soomaalida kaliya, oo aan arkin macnaha khatarta dadka iyo dalka ku hareeraysan. anigu waxaan rumaysanahay inuu isbeddel wanaagsan soo socdo, Soomaalidu inay ka caqaliyeysan doonto macnaha qabiilka iyo kala qoqobnaanshaha. waxaan aaminsanahay Soomaalidu dhowaan inay bahdilka, dulliga iyo kala qoqobnaanta ay ka guuri doonto oo ay fahmi doonto macnaha qarannimada iyo Soomaalinimada. maalinta aan arrinkaas qaadano oo aan ku baraarugno macnaha wixii naga khaldamay iyo waxa ay tahay inaan hadda baadi goobno, maalintaas ayaa duniduna dhegeysan doontaa. Ethiopia iyo Kenyana faraha nagala bixi doonaan. inta ka sokaysa xaalku sidan ayaa u ahanaya. waxa aan xal keeni karin 10 siyaasi oo jaga haysata iyo 10 kale oo rabta inay jagada ka maroogsato oo ayaguba aan hammi kala lahayn oo kaliya ku mashquulsan sidii ay kuraaso kala cesho lahaayeen. xalku kama sokeeyo dadkooda inay wax fahmaan, dadka in laga wacyigeliyo xumaha, dadka in la baro qiimaha ay leedahay Soomaalinimada iyo in qaran la hiigsado. qiimahaas markii aan dadka gaarsiino, maalinkaas ayaa dadku ayagu macnaha ay difaaci karaan dalkooda, maalinkaas ayayna u halgami karaan dadnimadooda. waa inaan anagu marka hore maskaxdayna xuraynaa. cadow aan annaga ahayn marli marka hore. marka adigu maskaxdada aad ka xurayso qaadarada iyo kala qoqobnaanta, maalintaas ayaad xorowday. cadowga kale oo adiga kaa bannaanka ahna waxba kaama qaadi karo. waana salaamantiin.